السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام الله وقالي أهمل البودرز كجوكتان كسر هذا الجنال كيجا كادي الصوتان وفيه مجنال فضلا جنال سبسكرايب نصار هدي أيمان تكوجو رئيسة قصة أمانت إذين وضوح أي كل عدي جبر أن آد وقرناي أو أن سي ونكسن وأقانو سيدو كلا قصة أني وقسم آد وحنون بدن أو قف كست أو مقلو وإسلية هاي رنتي وح معقول أماها لكن أدونك أنت آد جوكتد وح والبأيا دعي كرو بالقصة أن كل عدي جبر أن لقوا مجعو الشريفو إلى دقيستا gabadhan oo lagu magacaabo Shariifo waxa ay ku nooshahay Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho Shariifo waxa ay isqabeenin ninkeeda muddo adiga markii uu qabo 6 sano ku dhawaad sanadkii 7 ayay canug u dhashay intaasi way wada joogeen nolol farxad leh jawi degan ayay ku jireen wax markaasi noloshooda dhibay maysan jirinin sanadkii 7 markii ay dhashay wiil oo umul ay noqotay ayaa hooyadeed oo baadiyaha degan waxa ay ku tiri gabar ka yar ayaan ku soo dirayaa si ay ku umul bixiso waqtiga umushana aad ku jirtid ay kula joogto sida la wada socotaan gabadha marka ay umusho ama marka ay xanuunsato gabar walaasheed ayaa loo soo diraa si ay u caawiso Shariifo walaasheed ka yar ayaa loo soo diray way la joogtay muddo ayay la joogtay runtii ku dhawaad adiga 6 bilood ayay walaasheed la joogtay Shariifo walaasheed ayaa xanuunsatay markii ay xanuunsatay dhakhtar ayay u waday waxa loo soo sheegay Shariifo walaasheed inay uur leedahay way yaabtay war maxaa qaldan gabadhii walaasheed ayay wareysatay maxaa kugu dhacay abaay uurkan ayaa ku yeel waxa ay gabadhii diiday inay sheegto halka ay uurkan ka keentay iyo ninka uurka u yeelay kadib arintii wixii ay gabadhii isku dayday inay markasta ogaato oo Shariifo ay raadiso xaqiiqda walaasheeda iyo waxa ku dhacay markaas walaasheeda iyo qofka uurka u yeelay waxa ay aragtay Shariifo ninkeeda iyo walaasheed oo dhowr maalmood wada hadlaayo wada sheekeysanayo ayadana wax shaki ah maysan gelinin waayo walaasheed iyo ninkeeda ma ka filaneys in arrimo guur iyo shukaansi uu dhaxmarayo waana runtii qof kasta oo anaga naga mid ah ama Soomaali hadii aan nahay ma isdhahayo gabadh walaasha iyo ninkaaga ayaa shukaansanayo oo ma ka shakinayo marka Shariifo iyo gabadha walaasheed iyo ninkeeda oo wada sheekeysanaya dhowr markay aragtay maysan ka shakinin laakiin ninkii ayaa Shariifo u soo bandhigay oo ku yiri abaayo waxa aan guursaday gabadha walaasha ah muddo dheer markaan wada sheekeysanayna waxay iga ogolaatay inaan guursado Shariifo ayaa walaasheed u wacday oo weydiisay arintan xanuunka badan ee ku dhacday maxaa ka jiro waxa ay ku tiri abaayo ninkaaga waa iska reebi waaye muddo ayuu idaba socday guriga waan ka joogi waaye mar walba oo aan isdhoonaso ama waqti walba oo aan jiifo qolka igu soo gali jiray wuu ila hadli jiray hadii aan ka aamuso iga muusan aamuseenin ninkaaga ayaan guriga ka joogi waaye dantana waxay igu qasabtay camal in aan ninkaaga guursado Shariifo way rumaysan weeyse waxa ay ku tiri sheekadan ma dhabba ma suwaadile walaasheed waxay ku tiri abaayo waa run ninkaaga aniga waa isguursanay dhibkaaneeti ee uurkaan asiga leh uu ogsoon yahay inuu maxaa la dhahaa cunugan uu leeyahay ninkii markii la weydiiyay ha waa sax gabadhan xaaskeyga waaye sidaas ayaa jirto gabadhii Shariifadii way aamini weysay way runtii qaracanta wax la yaab ay la noqoto wayna tahay markii runtii la fiiriyo arin aad u la yaab badan waaye gabadhii ninkii qaba Shariifo ninkeedii waxa uu dhaay waxaan u tageynaa culimada maadaama laba gabdhood oo isla dhalatay aad midna hore u qaba jirtay midna aad hadda u qabtid wili wax fureen amuusan bixin laakiin labadii gabdhood ayuu leeyahay waan qabaa culimada markii loo tagay waxay dhaheen gabadhii weyneed ee xaaskii weyneed ayaa ka furantay waxaana ku hareysa xaaskii yareed ee canuga uurka dambe Shariifana canug ayay u dhashay ninka walaasheedna uur ayay hadda leedahay bis sidaas markii la dhahay Shariifo waxay ku qasbanaatay gurigii inay ka guurto maadaama waa ka furantaa ninkii la dhahay arrinka dhacay way maleysan kari weysay gabar walaashaaya ayaa waxa sameynayso maysan ku fikireenin ayadan runtii isma dhahin ayay tii walaasha iyo ninkaaga ayaa sheeke guur iska daay xitaa wada sheekeys u dhaxmaraya marka waxay dhahday arintaas la yaab kale ayaa igu dhacday qof kasta oo maqlo laga yaabay in uu dhaho wax macquul ah laakiin gabadhan aniga ayaa garanayo qisadan ay ka sheekeynaysan waa qiso dhacday oo dhab ah marka wax kasta adduunka inta joogtid way dhici karaan
qaar adinka idin kamid laga yaabo inay dhahdaan wax macquul ma aha marka gabadhii Shariifadii waxay dhahday guriga inaan ka guuray ku qasbanaaday aniga iyo canugeyga oo aan banaanka soo degno hooyaday waxa ay ugu tiri arrinkan hadii uu dhacay maxaa la walaashaada waxba ha goonin xiriirkana ha u jarin sidii marka horeeto aad isku ahaan jirteen loo walaalo ah inay isku ahaataan oo is xiriirisaan ayaan rabaa ani waxay tiri waa ii cuntami weysay walaasheeda oo qayaantay oo ninkeygii guursatay oo waxa ay dhahday iga sii qarasa haddana waxa ay sameysay wajigeeda iyo wajigeyga inay isku dhacaan waxay tiri waan ogolaan kari waaye mar walba oo jidka ku arkan runtii hoos ayaan fiiriyaa mana jecleysan ayay tiri inaan markasta wajigeeda iyo wajigeyga isku dhaco waxaana go'aansaday inaan walaasheeda gooyo iyo sidoo kale ninkii i qayaanay ee aniga oo xaaskiisa canug yarna hadda dhow u dhalay naag iga daba keena ama walaashay ila guursaday asigan inaan gooyo ayaan waxay tiri go'aansaday ninkii waan jaray ayay tiri laakiin gabadhii walaasheeda aheeday hooyaday ayaa igu qasbaysay inaan mar walba wada xiriiriyo oo sidii aan isku ahaan jirnay isku ahaan oo cafino ama aan cafiyo laakiin aniga way igu socoweysay arrinkaas weyn iyo cuntami weysay ayadana marka aan is aragno way islaantaa weyn ila hadashaa damiir la'aanteeda waxa ay tiri waqti walbo way isoo raadisaa laakiin aniga ayaa is diido inaan is aragno maadaama ay si xun ila dhaqantay oo wax aan ka filanaynin ay ugu sameysay hadda walaasheed waxay la nooshaa ayay tiri ninkii aniga ifuray ama ninkii lagu yiri naagta weyn way ka furan tahay uurkii ayay leedahay waa ay dhal rabtaa anigana gurigii waa ka guuray walaasheed inaan gooyo iyo inaan xiriiriyo oo hooyadeeda taladeeda aan qaato ayaa waxay tiri iskaga keen dhex darsan arrintaas ayaa igu dhacday ayay tiri walaalaheyga qisada Shariifo waa intaas waxaa laga yaabaa in qaar badan oo adinka idin kamid ah rumayso weysaan laakiin wax kasta adduunka way dhici karaan gabar ku nool wadanka Turkiga oo Sahara lagu magacaabo ayaa qiso ila soo wadaagtay maalin dhexdaas ah waxa ay tiri walaasheeda oo aabahay uu dhalay oo aan ka filanin ayaa ninkeygii shukaansaday kadibna ninkii ayaa wuxuu i dhahay Sahray in aan ku furo ayaan rabaa oo walaashaada aan guursado qaracanka aan ka qaado waxay tiri waa maleysan kari waaye anigana maalintii dugsi quraan ayaan aadin jiray marka aan maqanahay ayuu walaasheeda ninkii shukaansan jiray marka inta adduunka joogtid wax walbo ayaa dhacayaan gabadhan walaasheena wad u jeedaan waxa ku dhacay adduun waxaan joognaa waqti si gabagaba amaraayo oo maanta qisadii aan maqasho qiso ka daran aad maqleysid bari marka qisadaas walaalayaal oo gabadhan Shariifo la dhahay ku dhacday runtii waa wax laga xumaado oo laga yaabo marka qof kasta uu maqlo isleeyahay subxaanallah waa qiso runtii la yaab leh marka gabadhii walaasheen aheena arrinteeda halkaas ayay ku sugan tahay ninkii waa ay ceerisay ama waa ay kala tageen ama waa ay goysay xiriirkiisa laakiin gabadha walaashay ayaa waxa ay tiri inay xiriirkeeda gooyo ayaan rabaa hooyadayna waxa ay ku qasbaysaa inaan sidii hore aan isku ahaan jirnay isku ahaano anigana ma raba ayay tiri walaashay inaan isku isa soo dhaxgalno oo aan gurigeeda imaado oo ninkii aan kala tagno aan aragno waxyaabahaas oo dhan ayaan diidanahay ayay tiri oo ninka iyo walaashay bina arka markasto ma rabo dhibkaas ayaa igu dhacay ayay tiri marka waa runtii wax aan aniga laftirkeyga aan la yaabay asxaabta quruxda badan waa maadsantihiin talada aad soo siin doontiin Shariifo ayaa idinka sugeena insha Allah sidaas iyo muuqaalka xigo nabadgelyo